وسلامتين أصحابتا kusoo dhawaada barnaamijkeeni 1 by 1 waxaanu kusoo qaadan doonaa wararka iyo warbixinihii ugu dambeeyay waxaan wadeegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta kulamada ugu muhiimsan ee la ciyaari doono iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda aynu ku bilownay ciyaartoyga Sergio Dest ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socdo ku biiri doono kooxda Manchester United waxaanu ciyaartoygani ogaaday inay fiican tahay inuu helo meel uu kaga baxo kooxda Barcelona ciyaartoygan oo ay adag tahay inuu xil ciyaareedkan waqti badan ama uu ku tiirsanaado tababare Xavi ayaa ogaaday hadda inuu fiican tahay inuu ka baxo kooxda Barcelona sidoo kale kooxda Barcelona ayaa ku kalsoon inay diiwaan geliso ciyaartoyga Koundé ka hor kulanka ay maalinka Axadda la ciyaari doonto kooxda Real Sociedad balse bixitaanka Depay oo kaliya kuma filnaan doonto arrinkaas ama in la diiwaan geliyo ciyaartoyga Koundé oo kooxda Barcelona ayaa rajeynaysa inay diiwaan geliso ciyaartoyga Koundé haddii uu maanta ka baxo kooxda ciyaartoyga Depay balse waxaa la sheegay ciyaartoyga Depay haddii uu ka baxo kooxda Barcelona inaanay ku filnaan karin ciyaartoyga Koundé la diiwaan geliyo oo xataa waxaa la sheegay tababare Xavi haddii uu diiwaan geliyo ciyaartoyga Koundé waxaa la filayaa inuu tababare Xavi ku ciyaari doono shaxda ama uu shaxda u bedelo 3-4-3 oo uu ku ciyaaro 3 daafac ama 3 center back isla kooxda Barcelona ciyaartoyga Depay ayaa la sheegay inuu khilaaf ka dhex taagan yahay ciyaartoyga iyo kooxda oo kadib markuu ciyaartoygu heshiis la gaaray kooxda Juventus haddaba kooxda Barcelona ayaa ciyaartoyga Depay u sheegtay mar hore haddii uu soo helo koox ama uu la soo heshiiyo koox inay ciyaartoygan iyo kooxda Barcelona heshiiska u dhaxeeya burburiyaan hadda maadaama uu ciyaartoygan soo helay kooxda Juventus oo heshiis la soo gaaray hadda waxaa haray inuu burburiyo heshiiska u dhaxeeyay ciyaartoyga Depay iyo kooxda Barcelona oo ciyaartoygan isagoo aan heshiiska burburin kooxda Juventus kuma beeri karo balse ciyaartoygu markuu heshiiska burburiyo uu kula jiro kooxda Barcelona waxa uu si xor ah ugu beeri doonaa kooxda Juventus haddaba waxaa la sheegay inay jiraan khilaafyo u dhaxeeya ciyaartoyga iyo kooxda Barcelona kuwaas oo ah mushaahar aan la siin ciyaartoygan oo waxa lagu qiyaasay inuu ciyaartoygan ku leeyahay kooxda Barcelona mushaahar aan la siin oo ah 1 milyan oo euro dhinaca kale ciyaartoyga Wesley Fofana oo ay doonaysay kooxda Chelsea waayihii ugu dambeeyay oo ay dalabyo badan ka soo gudbisay iyadoo ay kooxdiisa Leicester City ka diiday ciyaartoygan inay ka iibiso ay ku adkaysay iibinta ayaa ciyaartoygani waxa uu dalbaday inaanu ka soo qayb galin ama inaan looga yeedhin liiska ciyaartoyda ka qayb gali doonto kulanka ay kooxdiisa Leicester City la ciyaari doonto maanta kooxda Southampton ciyaartoyga Fofana oo doonay inuu ka baxo kooxda balse ay kooxdiisa ku adkaysay inay iibiso ay qiimaha sareeya dalbanayso ugu yaraan 80 milyan oo euro ayuu ciyaartoygu ku dhagaaday kooxda oo uu diiday inuu ka qayb qaato kulanka ay kooxdiisa ciyaari doonto maanta halka la sheegay in kooxda Real Madrid ku fikirayso inay talab ka gudbiyeen ciyaartoyga Højbjerg si uu u noqdo ciyaartoygii bedeli lahaa Carlos Casemiro waxaana la sheegay inuu aad ula dhacsan yahay tababaraha kooxda Real Madrid ee Ancelotti oo xataa Ancelotti markii uu watay kooxda Everton waxa uu isku dayay inuu ciyaartoygan kooxda Everton ku soo diro oo ciyaartoyga Højbjerg markii uu ciyaari jiray kooxda Southampton tababare Ancelotti waxa uu watay kooxda Everton oo xilligaas ayuu isku dayay inuu ku soo diro kooxda sidoo kale waxa si rasmi ah loo ganaaxay labadii tababare Antonio Conte iyo Thomas Tuchel kadib markii ay isku dhaceen kulankii ugu dambeeyay ee dhexmaray ee London Derby kaasoo ku soo dhamaaday 2-2 haddaba labadan tababare ayaa kulankaas isqabsaday kadibna waxaa la siiyay ama loo taagay labadoodaba kaadh casan ah haddaba ganaaxooda uu soo saaray xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa ah in tababare Thomas Tuchel lagu ganaaxay dhaqaale ahaan 35,000 oo pound sidoo kale waxa uu seegi doonaa hal kulan oo tababare Thomas Tuchel waxa uu bixin doonaa 35,000 oo pound oo ganaax ah sidoo kale hal kulan ayuu ka maqnaan doonaa kooxda Chelsea halka tababare Conte lagu ganaaxay inuu bixiyo dhaqaale kaliya oo ah 15,000 oo pound balse wax kulan ah kama maqnaan doono sida ay sheegeen warbaahinta Holland ciyaartoyga Anthony ayaa weydiistay kooxdiisa Ajax inuu ka tago kooxda ama inuu ogolaato kooxda bixitaankiisa haddaba kooxda Ajax ayaa hadda ku socota fikirka ah inaanay ciyaartoygeedan iibin doonin ama aanu ciyaartoygu iib ahayn sidoo kale aanay jirin kooxda Ajax waqti xaadirkan sababa ku khasbaya inay iibiso ciyaartoygan oo kooxda Ajax ayaa aaminsan ciyaartoyga inaanay hadda iibin balse waqtiyada ka dambeeya ay suuragal tahay inay kooxdu iibiso oo hadda wax ku kalifiya ma jirto kooxda inay iibiso haddii ay noqoto dhaqaale iyo haddii ay noqoto waxyaabo kaleba waxaana la filayaa haddii aanay kooxda Ajax wax ka bedelin arrinkaas in kooxda Manchester United talaabo u qaadi doonto ciyaartoyga Jabko kooxda Manchester United ayaa kooxda hadda wada hadal kula jirta kooxda Ajax si ay uga soo wareegto ciyaartoyga Anthony dhinaca kale kooxda Liverpool ayaa la sheegay inay diyaar u tahay inay dalab 50 milyan ah ka gudbiso ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Brighton ee Caicedo ciyaartoygan ayaa mar hore waxaa la xiriiriyay kooxda Manchester United balse hadda maadaama kooxda Manchester United la soo wareegto ciyaartoyga Casemiro waxaa hadda la sheegay inay kooxda Liverpool diyaar u tahay inay dalab rasmi ah oo 50 milyan ah ka gudbiso ciyaartoygaas bal markana aynu eegno ciyaartoyga Carlos Casemiro ayaa maanta soo gaari doona magaalada Manchester si uu ugu maro tijaabada caafimaadka waxaana si rasmi ah loo soo bandhigi doona ciyaartoygan kadib haddaba ciyaartoygan ayaa rajeynaya inuu kaydka ama garoonka Old Trafford ka daawado kulanka ay kooxdu la ciyaari doonto maalinka Isniinta kooxda Liverpool iyadoo aanay jirin wax fursad ah oo ciyaartoygan uu kaga qayb qaadan karo kulankaas ciyaartoyga Casemiro ayay aad u adag tahay inuu ka qayb qaato kulanka Liverpool balse waxa uu rajeynaya
ciyaartooygani inuu garoonka soo xaadiro oo uu daawado kulankaas. dhinaca kale waxaa la sheegay inay maamulka kooxda Chelsea wax iska weydiiyeen suuragalnimada ay ku heli karaan ciyaartooyga Harry Maguire iyadoo aan caddayn mustaqbalka ciyaartooygan kooxda Manchester United. haddaba kooxda Chelsea ayaa doonaysa ciyaartooyga Harry Maguire inay ka qayb dhigaan ama ay ka qayb geliyaan doonitaanka ay doonayso kooxda Manchester United ciyaartooygeeda Christian Pulisic oo kooxda Chelsea ayaa isweydiisay maadaama aanu caddayn mustaqbalka Harry Maguire inuu sii joogi doono kooxda Manchester United iyo in kale. kooxda ayaa isweydiisay haddii ay rasmi tahay oo kooxda Manchester United ay doonayso inay ciyaartooyga Christian Pulisic la wareegto inay kooxda Chelsea taa bedelkeeda kala soo wareegto ciyaartooyga Harry Maguire oo ay labada ciyaartooy isweydaarsadaan sidoo kale ay kooxda Manchester United lacag dheeriya bixiso. sidoo kale waxaa la sheegay faahfaahinta heshiiska ciyaartooyga Marcos Alonso oo la filayo dhawaan inuu ku soo biro kooxda Barcelona. haddaba kooxda Barcelona ciyaartooygan waxa ay ku soo iibsan doontaa ama ay ka bixin doontaa qiimo dhan 8 milyan oo euro waxaana ciyaartooygan mushaar ahaan u qaadan doonaa. marka la sheego ciyaartooygan mushaharkiisa oo saafi ah oo aan ku jirin cashuuruhu waxuu noqon doonaa 3 milyan oo euro haddii cashuuraha lagu darana waxuu noqon doonaa 6 milyan oo euro halka ciyaartooygan uu saxiixi doono kooxda Barcelona heshiis ay muddadiisu tahay 2 sano. isla kooxda Barcelona oo wada hadal kula jirta ciyaartooyga De Jong si uu hoos ugu dhigo mushaharkiisa ayaa la sheegay inaanay kooxdu doonayso inuu ciyaartooyga mushaharkiisa hadda kooxda Barcelona ayaa doonaysa ciyaartooygan mushaharkiisa uu hadda yahay 14 milyan oo sanadkii qaato inuu ciyaartooygani ka dhigo 9 milyan oo ciyaartooygan maadaama uu qaato 14 milyan waxay kooxdu ka rabtaa inay ka dhigto 9 milyan oo uu 5 milyan hoos u dhigo ciyaartooygani. qodobada kale barnaamijkan waxaa ka mid ah sida ay sheegeen warbaahinta Francisco kooxda PSG ayaa ku riyoonaysa inay hesho ciyaartooyga Bernardo Silva. haddaba Lucas Ocampos oo ah agaasimaha kooxda PSG ayaa weli doonay ciyaartooygan waxaana noqon karaa heshiiskani mid adag balse kooxda PSG ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay sameysay dhaqdhaqaaq ku saabsan heshiiskaas halka ay kooxda Chelsea dalab rasmi ah ka soo gudbisay ciyaartooyga Aubameyang kaas oo ahaa 19 milyan oo euro waxaana si fiican hadda u socda wada hadalka u dhaxeeya Aubameyang iyo kooxda Chelsea waxaana la filayay inay kooxda Chelsea soo bandhigi doonto ciyaartooyga Aubameyang mushahar ku laablaabmaya kan uu ku qaato hadda kooxda Barcelona. dhinaca kale waxaa la sheegay kooxda Real Madrid inay la soo saxan doonin inaanay kooxda Real Madrid soo iibsan doonin ciyaartooyga bedeli lahaa waa ciyaartooyga Casemiro waqti xaadirkan oo kooxda Real Madrid waxay hadda eegi doontaa qaab ciyaareedka ciyaartooyda Camavinga iyo Tchouameni haddii ciyaartooydani ay ku qanci weydo kooxda Real Madrid kadib intaas ayay bisha January la soo wareegi doontaa ciyaartooy cusub. sidoo kale kooxda Napoli ayaa si rasmi ah hal xil ciyaareed oo amaah ah kula soo wareegtay ciyaartooyga hore ee kooxda Tottenham ee Tanguy Ndombele. ugu dambeyntiina kulamada ugu muhiimsan ee la ciyaari doono maanta kooxda Tottenham ayaa ciyaari doonta horyaalka Ingiriiska toddobaadkii saddexaad waxayna la ciyaari doontaa kooxda Wolverhampton oo tababar Antonio Conte ayaa isku dayi doona inuu ku soo laabto guusha kadib markuu baraajo galay kulanka ugu dambeeyay halka ay kooxda Wolverhampton ay ku jirto taxana ah inaanay 9 kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka Ingiriiska ciyaartooy inaanay badin oo taxanahani wuxuu noqday kii ugu dheeraa tan iyo 17 kulan oo aanay badin kooxdu sanadii 2018. dhinaca kale kooxda Arsenal ayaa la ciyaari doonta kooxda Bournemouth oo kooxda Arsenal ayaa sii wadi doonta guulaheedii kadib markii ay 2 kulan ugu horeeyay badisay. sidoo kale kooxda Arsenal ayaa markii ugu horeysay waxay isku dayi doontaa inay 3 kulan ugu horeeyay horyaalka oo xiriir ah inay badiso kooxdu oo kooxda Arsenal oo badisa 3 kulan ee ugu horeeyay horyaalka xiriir ah waxa ugu dambeysay 18 sano ka hor. ugu dambeyntiina kulanka ugu dambeeyay ayaa ah inay kooxda Real Madrid la ciyaari doonto kooxda Celta Vigo wareegii labaad ee horyaalka La Liga oo kooxda Real Madrid ayaa maadaama ay kulankii koowaad badisay iyaduna waxay isku dayi doontaa inay kulanka labaadna guul ku bilood ay kooxdu ilaashato horyaalka oo ay ahayd kooxdii ku guuleystay xil ciyaareedka hore. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like, subscribe na channelka si aad ula